hay-adaha ammaanka ee caasimadda gaar ahaan booliiska qaybta bari ee gobolka banaadir ayaa gacanta ku dhigay gacankudhigle qof dumar ah ku dilay degmada Kaaraan mid kalena ku dhaawacay. gacankudhiglaha ku eedeysan dilka oo lagu magacaabo Muxudiin Maxamuud ayaa maalinimadii Talaadada degmada Kaaraan ku dilay Ruqiya Sheekh Axmed Cali sidoo kalena dhaawac halis ah u geystay Xaliime Xaaji Axmed oo walaalo ahaa ayaa hadda xaaladeeda caafimaad lagula tacaalayaa goobaha caafimaadka waxaana sida la sheegay weerarkaasi loo adeegsaday mindi ama toorey. tixraaca xogaha shacabka baaris iyo dabagal dheer kadib oo ay sameeyeen ciidamada booliiska ee degmada Kaaraan ayaa u suurta gashay in gacanta lagu soo dhigo gacankudhiglihii falkaasi geystay. taliyaha qaybta bari taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir Cali Sow Goof jooge ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey howlgal lagu soo qabtay eedeysanaha loo haysto weerarkan bahalnimada ah. 2 maalin ka hor waxaa weerar bahalnimo ku qaaday gacankudhigle halkan ku xiray sidaad arkayseenba oo 2 gabdhood miduna dhimatay miduna ay dhaawacantay dhowr toorey ku dhiftay miduna dhimatay waxaana la jooga caawa noo yimid ahalkii iyo walaalihii gabdhahaas iyo waalidkii iyo saygeedii iyo dhammaan waxaan la wadaagnay marka gacankudhiglihii inuu gacanta ku soo qabanay anagoo ka kaashanayna saraakiil badan ka baxsan gobolka Banaadir oo cararay waxaan leenahay waalidkiina ha ku raali ahaadaan Allahna u naxariisto intii dhimatay waa la qaybsanaynaa xanuunka iyo dhibaatada ay u geysateen qof kastoo sharciga ka carartana meesha u carartana waa uga horeeya meesha ay ka tageysana waa uga daba jirya marka waxaan leenahay ka cararidu ku saari maydo cid kasta waxaan anaguna uga mahad celinahay hooyada saraakiishiina la shaqeysay annaguna waxaynu haday ka hortag ahaa wayaan ka daba tag dhaba inay noqdaan aan jecelnahay waxaan leenahay sharciga cid ka dhuuma kartaa ma jirto cid ka weynuna ma jirto asiga lagu weyn yahay in la waafajiyo sharciga annaguna gacanta hay'adaha ku shaqada la gaarsiino ku salimno annagana la ka raba hadii alla yiraaho. ehelada dhibanayaasha oo iyana dhankooda ka hadlay dhacdadan ayaa ugu horeyn ka mahad celiyay howlgalka ciidamada booliiska ay gacanta ay kugu soo dhigeen gacankudhiglaha iyagoona dhinaca kala codsaday in cadaaladda la hor keeno eedeysanaha. gabarta kalentana salaanay u tag walaalo ana ka celihaye raala ahaabe waa qof dumar ee guriga qodidaad qodaysa kala hiriidha guriga u orday sugo toorey la rooraayo leeyimi gabarti waa ka soo gadoonto haday ka soo gadoonto tunka kala gala gabarti gabay tir gab haday tir walaalo waxaad u dileehay tir haday xaad u dileey tir hal daruuro ku soo gala iyadoo la galay inay ku soo haad markuu ku dhufto iyadoo jiifta qoorta oo uga rogo oo waxaan ku leeyahay tooreeya say ku nooqsun shay ilaahay yaa og anug mulqa oo dadab 3 bilood dhalanay leeda anug way haylaana ilma mulqa oo halkoo roon u sulto masana jiray leeda waxaan ku leeyahay ilma yar oo caruura oo waxba aanan ogeynay leeda waa mid dhaawaca wallahi hurdadan uu noo diiday ninkan indhahuna naga riday gabadha walaashay gabadha kalena walaashay mid dhaawaca habartay dhashay gabadha Ruqiya Sheekh Axmed anna waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Sheekh Axmed booliska degmada Kaaraan iyo qaybta bari ee gobolka way ku mahadsanyihiin dadaalkii iyo howshii ay galeen iyo soo qabashadii ay soo qabteen waan uga mahad celinaynaa. Ruqiya aniga waxa ahay saygeeda ayadana xaaskeyga ahayd jannada Fartooso Ilaahay ka waraabiyo waan ugu duceeyay raaliyani u ahay aniga waxaan ka imaaday South Africa waxaana codsaday in aan meed kala duwan ilaa ka imaado waana laga aqbalay qarabadana waa iga aqbashay ayagana waa ku mahadsanyihiin marka sharcigaas islaamka wuxuu ka qabo ninkaas sanoon mariyo dhibaato dambe iyo ummad u geysan. gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Abshir Maxamed Abshir Kaaraan ayaa isna dhankiisa dadka degmadiisa ugu baaqay inay sii wadaan wada shaqeyntooda dhow ee maamulka si ay u sii socoto howlaha nabad ilaalinta ee degmada ka socota. marka waxaan codsanayaa reer Kaaraan inaysa dhaliishanin aysa isdhihin booliiskan daacad u shaqeeymaye booliiski oo daacad darada u shaqeeyo meesha ma joogo mid daacad u shaqeeyo joogo in daacad loo wada shaqeeyo gacmaha la isqabsadaan rabnaa loo yimaado booliiski warkaal halkaas uu ku jira xagga ku cararay meeshaas uu sii maraa gaadiida la haystaa oo la daba kaca meeshuu ku jiro adiga dad gaari ka daba qaadato oo meeshuu sii galay aad sheegto gurma degdeg ah ku imaanayo laakiin haddaad istiraada kuwaan balay qawooyinkaas oo ma socdaan iga dhaaf adna dhaxdad ku dhuntay annaguna eediya dhaxlayna marka bulshada reer Kaaraan waxaan ka codsanaa mar walba inay booliiska la shaqeeyaan hay'adaha amniga bar istaagaan. Cabdi Fataax Aqyaar warbaahinta ciidamada magaalada Muqdisho.